Soomaali maxay meel walba joogtaan waan halka naga daawanaysaan waa Asmadaanto waxa maanta barnaamijkan ila daadiin doona walaalkii Salmaan Boqor barnaamijkan waxa waaye barnaamijyada hore uu ka duwan yahay waxaan falanqeyn doonaa dhanka siyaasadda qof walba iyo sida ay la tahay yaad u rajeynaysaa inuu guuleysto mase yay kula tahay aragtidaada inaan aragnaa rabnaa Soomaalida yar iyo weynba ay wada siyaasi noqdeen waa ka daba tageynaa qof walba waxaan ogaanaynaa qofku taageero mase qofku siin lahaa oo maartay guusha hadduu sheego qofka magacii sababta uu ku guuleysan karo sababta uu ku taageerto ma waan weydiin doonaa insha Allah ay Salmaano يا كبرنا إن برامج كحكوس سبسية هاي إن مدام ما عرفت إن سياسة الصومالي جبتها هاي وحاول يقولوا هاي إنه كوجل السنة حلقة مرحتنا مرة مصير عطك السين له مدحوينها صوص صعدو يا عطك السين لهاد يا صجع شيء إنه كوجل است حاجة لا إنه كوجل است فرماجو إن شاء الله معنا فرماجو وصولة تجع شيء أصلاً تصولة معاك دورتي محاسب كجع شيء هذا بوشة دتك بدن أنت بدن عساك تاجران صدرت عساك عن كل عساك هاي قصة صومال قدي وحبوليتك على إنكستان أنا نوجين لسه لكن ساسا عن جعل عن الناس كوجل است فرماجو الله يعزك فرماجو عديني كان عضقة سودو برا ما ستة برامج كان في معركة تجودها كجرنا وحواي برامج كوكوسة بسنية هاي سياسة الصومالية مدحوينه جعلان لهدينا عديسي أما مدحوينه جعلان لهدينه معناها مدح النقضاء ومعركة ودنك وتلذي سهاي إن هذا ما عاكو بالله بيكوسو دو Asmadaanto الله يعزك وكله فعلا لا ما شاء الله فؤاد سودو إن فؤاد ذلك Soomaali قربنا كوجد ميس 4 سنة كور 4 سنة كوري إن قبل كي مات قال ولا شيء كلا سوق على كذا سوق على لكن ما شيء كنا اوكي سوق على ما شاء الله waa tagay bariga runantii oo meeshadan waxaan rabnaa inaan ku weydiino ololihii doorashada bilowday fikradaada qof walba fikradiisa rabnaa inaan ogaano fikrad aruurino yay kula tahay inuu ku guuleysanayo xilka madaxtinimada ee soo socda insha Allah hadii la yiraahdo laakiin siyaasad ma ku fiicin laakiin madaxweynaha aw codolaa sheegaas haye kan hada farmaajo farmaajo وصولة sababta u dhaafay farmaajo sababtoo farmaajo dalka waxa weyn uu qabtay سنة 4 سنة بعد الواد الوعليو أو مرينا هنا كين نقايس شعب كله صح إنه نقنا يعني ساسو كذا وعليس فما جاء صون ما شاء الله كاسو فؤاد ما شاء الله أدي ما سنت صح معنا صدو وان السلام Asmadaanto ها سياسي كسودو Asmadaanto سميرة عبدي سميرة عبدي برنامجك وحكوسة بسنية هاي مدام آتاي قبر قروح بدن كل إنداعهم بقدر يمية برنامجك وحكوسة بسنية هاي وأن كاد لنا مدحوينها جعلان لهيد إنه معناها حلقة قبطون 4 سنة صوصعته ها محمد عبد الله فرماجو عدس سبب أدو عدس وحصا قبته way muuqataa Soomahan الله يعزك أنا ما عرفنا ما نوم جسد way muuqataa dalkii wax horumar inuu ka sameeyay صح marka naga siino soo laabto waan taageersanahay خيرنا حسن علي قيرمايا فرماجة تاجرسنا الله يعزك سميرة سودو أيوة قلب وناكسن أديكوا مقعد كوبلا كوسو دو Asmadaanto وناكسن وحالي دهاني نصر عبد الله الله يعزك سودو واندو هاي سؤاشا ميكروفونka dadka la dhaxmarayna Soomaalida waxa waaye ololahii doorashada la galay Soomaaliya waan gartay horta Soomaaliya gorma kugu dambeysay 2009 waaw hadda dhow kugu dambeysay 2009 sagaalka ku bilina sagaalkii sijuu caadi noqotay markay okay maxay kula tahay aragtidaada ku aadan doorashada soo socota insha Allah yaa ku guuleysan doona mase codka adiga siin leed haddii la dhaho yaa ku guuleysan lahaa laba su'aal kaliya macnaha haddii la dhihi lahaa yaa ku guuleysanayo waxaan isdhihi lahaa farmaajo maadaama taageero badan uu leeyahay dalka dibadba shakhsiyadaada haddii lagu dhaho qof uu codayna maadaama asaga uu taageerayaal badan yahay wax qabadkiisa iyo wanaagiisana dadka ay kaga badbataan macnaha maqalkeeda haddii xataa aan arkin aniga asaga aan u codeyn lahaa farmaajo u codeyn sababta uu codeynaysa maxay tahay farmaajo maadaama taageero badan uu leeyahay wanaag badan laga sheego wax qabadkiisa uu fiican yahay wadankana sidii hore wuxuu isaga bedel hadeertaan intuu asaga maxkamada hayay dad badan khayr wataan khayr ما غير معارضك معارضك كيف تبيع معاكم معارض ده خير هذا بحقوق السماء المعارض دولتي صح لكن الدولة ولا معارض كرا محافظنا الله كرا أنا معارض كرا محافظها ما أنت معارض وياه هذا اللي افتكر ما أنت الدولة ده واحد كهلا اسمه واحد فكرة هذا مبدأ واحد كدوم هذا اسمه يسوع معارض أكون غير مو هذا اللي كاي الله سعدا أوكي هاي هذا ما سنتاي
ninka ma la arkaa uu gaaban yahay kaamirada kuraadi waa lagu arkaa baraada ku soo dhawow isma dhaanto adoo ku bilaabaya magacaaga magacayga Mawlid baan dhahaa aad ayaan u faraxsanahay magacayga Mawlid baa la dhahaa mawlidow baraada waxaa barnaamijka uu ku saabsan yahay madaxweynaha jeclaan lahayd inuu macnaha sanadkan soo socdo ama maarag doorashada soo socdo inuu ku guuleysto waa la iska yaqaanaa farmaajo waaye waa la iska yaqaanaa macnaha la iska yaqaanaa mise waa u codeysay macnaha farmaajo wadata alle isag qayrana dadka Facebook qayray soo dhigaan way u hambaliyeen ma qayr ma wata farmaajo mar walba wata farmaajo sababta macnaha u wadatid macnaha ma wax qabada ka aragtay ma ya nin wadanka wax u taray wax badan u taray waaye ma sha Allah ya alle isag macnaha waxa leeyahay wax qabadkiisa ku taageeraa waxaana jeclaa inuu soo laabto alle isag soo dhaw braa soo saaxib galab wanaagsan adigoo magaca ku bilaabay magacayga waa Cabdisalaan ما شاء الله عبد السلام waxaa la bilaabay ololashii doorashada Soomaaliya socoto ololahaas marka adiga asdhiileed codka yaasiinleed oo ku guulaysan aniga runaantii haddaan ka hadlo waxaan sii lahaa Shariif Sheekh Axmed sababta u siinaysa maxay tahay Shariif sababta aan u siinayo waa nin howlkar ah oo ii sheegay inuu wadanka wax ka qaban karo aan aaminsanahay horena loo soo tijaabiyay صح saas awgeeda marka laakiin Shariif uma waa sharaxay Shariif ma barnaamijka nooga ciyaar ma barnaamijka ku dheelaaday Shariif ku jira marka waxaan siinayna Shariif siinay maadaama hore aan soo tijaabinay asagoo ku meel gaara haddana hadday tahay ku meel gaarna ka saarayna haddana waxaan aaminsanahay inuu ka saari karo one man one vote gaarsiin karo ما شاء الله عبد ما صدق فكرة هذا آدم سودوي هذا وما صدق الله يعزك سودو اسم دانتو أدو كبلاوة مقعد magacayga xaawun musawaay xaawun musa salaamaya الله يعزك حاوم موسى ka qaadnay salaanta barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay madaxweynaha codayn lahayd ama aad jeceshahay inuu macnaha doorashada soo socdo inuu ku guuleysto madaxweyne farmaajo aan codayn lahaa farmaajo الله يعزك غيرنا dad badan ay sharaxan xasan sheekh shariif farmaajo aan codayn asaga arkay inuu ninka daacad yahay dalka dhisayo macnaha waxa uu aragtaa inuu daacad yahay inuu dalka dhisayo inuu hawsha ka sii wadi karo meeshii hawl fiican hadda uu qabtay Soomaaliya oo ay soo celiyeen meeqaamkeeda adduunka ku lahayd waxay roo dhimayeen asaga dhameystir kara nin daacad ka jira Soomaaliya ka aaminsan الله يعزك زودو روكسان بيج برو يور عفاتكاga waan ka qaasax macna ما شاء الله galab wanaagsan wanaagsan oo wacan adigoo magaca ku bilaabayo isma dhaanta ku soo dhawow wallahi horta waan ku dhawaay isma dhaanta hadda igu cusbad la soo dhaweynaa mihi inkastoo wajigayga uu qarsan yahay haddaan fur waa garanaysaa oo leenayaa soo marka wallahi magacaygu wuxuu yahay Maxamed Burhaan Daawud marka insha Allah waa ka sax ما شاء الله هذا ما استاي سؤال شمانته ميكروفونka dadka la dhax qaadana waxa waaye qof walba aragtidiisa inaan aragno waxa lagu jira xilli ololashada doorasho lagu jira Soomaaliya adiga codkaaga hadii lagu siiyo coday lagu yiraahdo yaad codkaaga ku aamin leed wallahi horta waa ra'yi wanaagsan su'aal wanaagsan way tahay hadda isku day jawaabteeda waxay ila tahay horta inkastoo aan nasiib u yeelanin in aan Muqdisho joogo aan ka doorashada ka qayb qaato laakiin anigoo wadanka la jooga ka qayb qaadan karaa soo waxay ila tahay anigu ninka hadda wanaagsan oo madaxweyne noo ah inaan xilku dhibno waayo maanta inta uu qabtay qof walba uu garanayaa Soomaaliya xaaladda ku jirtay iyo xaaladda hadda ku jirto isma lahan waayo maxaa yeelay sababtiisa ay maanta ku joognaa sababtiisa ay horumar ku gaareenaa waxaan leeyahay cid kale maan waa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo هذا وما سنتي ساعة معنا وقتها قالين وكان علنا إن شاء الله قلت دمبه وحيسنا إن قلبوا نكسن أذيوا معكم بالعبا عصر كل مغرب الجاري مغرب قاعدين يصوبوا نكسن عبد الرزاق شيخ حسن بالليرة وجوا نيروبي أوكي إن سومالي قرمك هودمس سومالي ميانية هاي ريكيا ناي ريكيا تاي اوكي كل ريكيا هذا تاي سومالي باولي اتي تاي NFD كل شيء NFD كل اوكي ما شاء الله ولي سومالي باطاي NFD لكن سوماليا ناي مقع سوماليا وقتها لكن سومالي ماذا وقشها سومالي ماذا وقلها وانا كفانيا ما شاء الله هذا ما سنتاي حلي ولا دورشا لو جرا سومالي حتى يقول لا عدك هذا قفسي حتى هذا سجوا ولي سومالي ماذا كمان مريده عدك هذا يكون امين للياسين له codkayga badana tartamay meeshaas waxaan ku aaminayaa codkayga hadii maanta coday liidii lahaa waxaan ku aaminayaa codkayga farmaajo sabab waxaan ugu aaminayaa farmaajo waxa weeyo dawladda Soomaaliya intuu hayay waxyaalo fara badan buu ka qabtay mashaariic fara badan buu ka fuliyay
waxaa weeye aad buu waxaa weeye u hagaajiyey oo nidaamka dowladnimadu ay soo celiyey marka wixii aan haddaan dhihi karo waxaan Soomaali wax ka qaban karo oo waxaa weeye Soomaali lagu aamini karo farmaajo weeye sidaas ayaan Soomaalida ugu jeedaa inay taageeraan insha Allah aad ma soo dhow Allah ya izig legend fiicanta fiid umbaa ma li jirno waxaan ku soo dhow isma dhaantaada ku bilaabay magacaaga وادوا برادو ما سنت مقعي وعبد القادر حسن ابو بكر الله يعزك ان برنامجك ما wuxuu ku saabsan yahay in madaxweynaha jeclaan lahayd inuu maaragtay xilka noo qabto ama uu xilka noo sii haayo أنا هنا waxaan jeclaan lahaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Sheekh Shariif si fiican sabab laakiin aan ku dooratay waxaan leeyahay ninkaas intii uu wadanka hay isbedel badan ka dhacay ciidamadii xoog uu soo celiyay sax shakhsi ahaan marka loo fiiriyo waa nin diinta yaqaan wadan sidiisa wuxuu ku fiican yahay in nin hogaamiye fiican oo dhan walba ka diiniyan iyo maadi ka diyaarsan marka Sheekh Shariif asii ani ahaan shakhsiga codkayga Allah ya izig qofku waxa waaye wuxuu leeyahay dooq iyo kii kale si fiican brother ku ma santaa waqtiga qaaliga jazakallahu bro ma santaa ان قلب وناكسن مقربك لا غاري مقربك ادينا ان شاء الله بلا مقربك waa dhow yahay su'aal rabana ku weydiiyo adigoo maartay fikradaada cabiraayo Soomaali horta gorma ku dambeys Soomaali waxay ugu dambeys 2010 ya 2010 okay ma sha Allah hadii lagu dhaco codkaada qof si codkaaga maartay dad badan tartamayo rag badan tartamayo siyaasadda olol doorasho lagu jira yaad siinaa codkaada boqol waxaan siin lahaa farmaajo boqol farmaajo siin lahayd sabab waa farmaajo wax badan lagu qabtay Soomaalida iyo qabiilada اوكي صدرت فرماجه سيله هذه هذا ما سنتاي قلب وناكسن walaal soo dhaw wasmadaanta waa dhawaanay adigoo magacaaga ku bilaabay shukri axmed maxamed maanta mikrofoonka dadka la dhaxmarinay waxaan weydiinay su'aal ay ahayd ololo wax lagu jira doorasho wadankii Soomaaliya sax codkaaga adiga hadii lagu dhilaa qof si ku aamin codkaaga yaa ku aamin leeyahay farmaajo boqol farmaajo sabab qabyaaladu uu naga dhameeyay ilaahay kuma darnaaday wadankeena sidii hore uu ka bixiyay ma sha Allah farmaajo waxaan leeyahay boqol ha guuleysto mar labaadna iyo mar saddexaadna ha loogu celiyo farmaajo ma sha Allah aad iyo aad ma santaay farmaajo ay dhahday aad iyo aad ma sha kulli waa asna video waa loo share garan doonaa adiga magaca ku bilaabay soo dhaw wasmadaanta aamin abdullahi ali dhaha maanta waxa dadka su'aal weydiinayna ololo doorasho lagu jira Soomaaliya kulli Soomaaliya tahay marka adiga codkaaga hadii lagu siin lahaa qofkan ku aamin lagu leeyahay rag badan tartamayo yaad ku aamin leed codkaada adii leed ninkaas ka soo bixi karo maxamed abdullahi farmaajo ku aamin lahaa farmaajo sababta uu sinay isma xitaa waxaan siinay wax badan oo wadanku qabtay haye muxuu ku duwan ragii kala waxbay qabteen ay laftirkooda xasan sheekh tartamayo sheekh shariif tartamayo hadda walaa la wada xashiiqaasi hadda xashiiqa ay xigo laakiin saadii aan dhilaan cidaasi farmaajo siila wax badan oo wadanka u qabtaan maalinta kala socdaan daawada sax marka hadii waxaan siinaa farmaajo khayran dhilaan siilaa farmaajo ma sha Allah aad iyo aad ma santaay ay walaa si qaali ku soo dhaw isma dhaanto adigoo marka hore dadka salaamaya magacaagana u sheega magacayga kor u qaad magacayga xabsa macalin waayo ay xabsa macalin ku soo dhaw inaad eray barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay madaxweynaha jeclaan lahayd inuu doorashada soo socdo xilka noo qabto waxaan jeclaan lahaa maxamed abdullahi farmaajo sababtay ku dooratay farmaajo boqol farmaajo taageersanay Soomaalina ugu mideeyay sababtaas aan ku doortay laakiin dumarka dhan farmaajo u codeeyay maxaa baad gadar u soo adeena walena الله يعزك ولا شيء خالي كسو دو maadaama aad farmaajo codeysay waana kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga quruxda badan ee nala qaadatay oo seta halka hor wanaagsan waxaan waa dhownahay okay waaye ma sha Allah wallahi maanta aad u qurux badan tahay galabta waxaan rabnaa su'aal is weydiinayna su'aasha dadka weydiinayna waxa waaye codkaaga waxaad tartamaysa dad badan tartamay ololo doorasho lagu jira Soomaaliya codkaaga qofku aamin hadii lagu dhaho yaad ku aaminayna kursigaas intaas milyan oo Soomaaliya maartay wada sugayso أنا شخصيا ما هو معنا قفكاga siin leeyahay horta inta sharcan ay tiri waxa tiran Sheekh Shariif Xasan Sheekh Farmaajo Khayre Geelle Xasan Sheekh Maxamed aniga maadaama maamulkaygu uu yahay maamul oo taageersan dawladda waxaan taageersanahay dawladda mana awla jeedid Xasan Sheekh aad yaa anaga madaxweyne noo Farmaajo maadaama aniga oo maamulkayga ee dawladda taageersan yihiin
haddana finaalka ay taagan yihiin farmaajo taageereen galmudug ka imaado galab wanaagsan soo dhow wanaagsan oo wacan big baro aad farxad bay tahay inaan kula kulmo galabta waliba xilli maqrib lagu jira waqti aan hayo maanta mikrofoonka dadka la dhaxmarinay oo la doorasho wadankan uu ku jira marka codkaaga hadii lagu dhigaa qof codkaada si oo kursigaas yaad ku aamini lahayd oo maartay wadanka oo saas u burbursan qof aamin oo adiga asdin qofkaas ka soo bixi karo mudane xasan sheekh maxamuud sabab xasan sheekh hore loo soo buroobay badan oo soo qabtay tag badan tartama xasan sheekh ragam ugu dawiyay laba nin ayaan soo qaada lahaay haye labada nin waxa adan ugu siisata xasan sheekh maxamuud صح labada nin yaa wadankaani waa joogshay xasan sheekh maxamuud markuu doorashada galayay haye wadanka saan uma dhibaato badnaan dhaqaalaha xaqiisa xasan sheekh maxamuud wuxuu ugu dagan yahay lacaga wadanka taalay haye lacag badan dadka saan uma qaajeesneen dhibaatadan uma badneen qaraxyadan masiibooyinka tirada badan ma ahalin xasan sheekh maxamuud aan dooranaa walaalkay xasan sheekh raadimo codkaaga siin leeyahay codkaaga xasan sheekh maxamuud aad aad u maasanta kullu fiitas way gaari doontaa aad u maasanta thank you brada ku soo dhaw ismadaantooda ku bilaabay magacaaga magacayga waxa la Ibrahim Ali Ismaaciil alla ya isag maanta wuxuu ku saabsan yahay barnaamijka doorashada soo socoto madaxweynaha jeclaan lahayd inuu qabto bro ana aad u taageerayo wax badan oo indhaha in soo jiiteen uu qabtay waxaan dooran lahaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababtay ku dooratay marka bro waa ogtahay waxaan dhigi karnaa ciidamadu dhisay sax wax badan oo qabtay liyaamiyaasha waad aragtay حدودكي ما نكست كينيا اسكو بربرين jirtay soo celiyay ciidamada la keenay sax waxa kale ku sheegaya adiga waa indhaha ka Sheekh Maxamuud taageersanaa meesha ka hadlay tareeli xamar laga soo raray ee Kenya ku gubi jirto oo sokor oo bur waxa la taageeri karo wax laga sheekeyn karo maaha qarax meel ka dhacay waxaas waa iska socdeen wiligeed xasan sheekh shariif ay socdeen sheekh shariif sheekh shariif uu socday marka waxaan dhihi lahaa madaxweynaha Farmaajo hala soo celiyo haddaan nahay Soomaali aniga abgaale adiga habargidiri adiga hebel ka baxa Soomaaliyeey aan israacno Soomaaliyeey aan israacno Soomaaliyeey aan israacno Soomaaliyeey aan israacno halada ficilka halada qabiilka waa aragteen caalamka indhu soo jiitay kun baylod baa nolol tababaraya wiligan Soomaali marin war hala jooga war hala dhaaf walaalkay Xasan Sheekh waa Sheekh Shariif hala dhaafo Soomaaliya israacno waa aragteen wadanka horumar uu gaaray ma fahanteen cunaqabataynta hadii nagala qaado Soomaaliya waa tagtay caalamka nala yaaban Soomaaliya ha israacdo war Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha israacdo Farmaajo aan soo celino Soomaaliya soo celino galab wanaagsan setabu fiican wala baay ma sha Allah aad u qurux badan tahay galabta mar walba ma saartaa mise galabta leeyahay markasto okay ma sha Allah xoolahan kaliya ma askaraftu mise aan kula qabtay maya kabtan way mogtahay macnaha waa salaamil karo ya aad u qurux badan ma laakiin public la jooga ma hadeeyo kumaan ma aad u qurux badan tahay ma sha Allah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal su'aashaad dadka dhan aan weydiinayna xilli salaada lagu jira waqti aan hayo haddii codkaaga lagu siin lahaa yaad u codayn lahayd ololaha doorashada Soomaaliya ka socoto farmaajo u codaynay sababta u codaynaysa maxay tahay maxaa u codaynaya dad dawlad wax badan ka bedelay Soomaaliya nabad ka dhigay sax maxaa la jiray soo san ku dooranaa okay marka farmaajo si Soomaaliya aad u maasantahay